الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلطان أبشر waxaan doonayaa mowduuc yar oo gaaban inaan ka hadlo waayadan hadalku gashi male laakiin mowduuc yar oo gaaban oo dadka hadal hayntiisu ku badan tahay inaan ka hadlaan doonayaa. shantii sano ugu dambaysay odayada samaroonku hawl badan bay qabteen, hawl badan bay qabteen. haba ugu badnaato saami qaybsiga maanta la yidhi dhinacay naga dhiga. shantii sano ugu dambaysay hawl badan bay qabteen. mar imiga ilaa 3 sano 4 sano meelaha niga xigto waxaan madaxweyne Siiraanya intuu joogay waan tagnay 13 habeen Hargeysa joognay. odaygu wuxuu yidhi markaan la tashanay tala qaran baan arrinka ka yeelanaa oo ballan qaaday. dhibaatada ugu weyn maanta horta waxa aan la hadlayaa waa dhalinyarada reer Awdal iyo galbeedka maaragtaa Somaliland ayaan la hadlayaa. waxa la yiraahaa saami qaybsiga xagu ka fadhiistay ma odayada iyuu ka fadhiistay xagu ka fadhiistaa la yiraahdaa. odayada ma ina cid kale oo inii hadashaaba ma jiree. madaxweynihii maaragtaa xilku ka dhamaaday oo ballan qaaday nin weyn uu ahaa. arrinka tala qaran baa laga gelayaa buu yidhi. 13 habeen baan Hargeysa joognay. kuweena Hargeysa joogaan noogu hawl badnaa. bal 15 suldaan iyo caaqil oo kolba mid halkaas soo joogsanayo oo oranaya kaalay inaga waxaasaa layna siinayaa salaadiinta ka soo har salaadiinta. dhibaatada ugu badan kuwa Hargeysa joogaan iyay nagaga dhacday. waan ka adkaysanay, waan soo noqonnay, waanagi waaga dhaweyd ku noqonnay. madaxweynuhu wuxuu sheegay arrinka in tala qaran laga intiina soo wada socota. faraskan fuushanaa waan ka degay, tala qaran baa laga yeelan doonaa buu yidhi. hadalkaa dhegaysta dhallinyaroy. kolkaan ka nimidnay dhowr wiig dabadeedna halkan buu yimidoo foodkii ha loo diyaargaloobo buu yidhi. waar maxaa isbedelay? wixii isbedelay waan daba gallay. kuwii marka horeba salaadiinta kala reebayay sidii waraabo baadi adood kolkaad baadida doonayso waraabuhu uu ku ag socdaa. kuwii halkaa joogay iyaa maaragtaa yidhi maxaabad odayada ku falasaa? annagaa dad isa sharaxa ku hayne 3 xisbihuni ha diyaargaloobaan. dhallinyartii isa sharaxasayna annagaa ku haynay ku yidhaaheen. ballankii oo Hargeysa nagula soo galay uu ka baxay. halkan markuu yimiday waa kii yidhi ha loo diyaargaloobo, waa kii yidhi moogta. waxaan leeyahay nin baaqiile la odhan jiray oo waa laayood wada garanaysaan ayaa boorama joogi jiray. ninkaasi intii uu miyir qabay kolkuu hoteelada wax ka cuno wuxuu odhan jiray baaqigii ii dhiib. waar ma lacag baad waar wanagii boqolku siinay noo dhiib. waa dambaa la ogaaday inaanu maaragtaa oo magaaladii isku sheegtay. aakhirkii wuu waashay. baaqiilaa la odhan jiray, waad wada garanaysaan, waa ninkii carruurta dili jiray. madaxweynuhu baaqi unbuu nagu yeeshay. intuu nala ballamay uu yidhi tala qaran maan gelanaa. markuu halkan yimiday sidii waxaan ballan isku ogeynunbuu yidhi foodkii ha loo diyaargaloobo. baaqi unbuu nagu yeeshay. anugu waxaan ahay suldaankii xeebaha, waad garanaysaan. dawlad foodkeega aan ku hawshoodana taasaa jirta. inkaaraa meeshaa nagaga dhacay. qabiilka keliya inaanu suldaanka u ahay oo keliya ayaa 3 qof oo digrata madaxweyne lagu magacaabay ayay maaragtaa iyuu ugu yimid halkaa. 4 baan weliba lahaynoo ina cabdi gaagaalaha ayaa laga qaaday xilka. waan kaga caban jirnay Siiraanyo. gobay raalli noqo. Siiraanyo kaga caban jirnay. geesi sanaaya gobay raalli noqo. waa cabashadii maantaan ka garawnay. 3diiba wuu ka qaaday. dadkii xeebaha ugu cod badnaa 3diiba wuu ka qaaday. raggayagii waaweynaa uu nagu hor gowracay. nasiib daraa nagaga dhacday. wax garawo kama hayno. weliba baaqi buu nagu leeyahay.
muxuubuse u soo noqon saddexdiiba uu ka qaaday waar bilaa berriina timid malaha meelo kale u samaystay waxaan leeyahay dhallinyaroy ninkaa baaqiile waad garanaysaan ninkii baaqiile waa ninkii carruurtale wuxuu layn jiray 12 jirka iyo 7 jirka inta u dhaxaysa carruurtii baa shirtay waxay yidhaaheen waar hebel yaa dilay baaqiile hebelna yaa dilay baaqiile maxaan yeelaa way shireen baaqiilaan dil la yidhaaheen waad wada ogeydeen boorama waa lagu wada garanayaa dad carruurtii u laayay tolkii yaa magta bixin jiray 500 oo carruura unba maalin khamiisa u shiray suuqa markii la soo saamiyey meeshii lagu arkaa loogu tegey bal waayay 500 oo carruura adiguba qabo 50 markii la qabtay 450 baa dilaysaa magaaladay ka saareen waa taad ogeydeen inuu seeraha ku dhintay tolkii cid magtii ay ka qaataan way garan waayeen arrinkaa waxaan uga jeedaa dhalinyaro ay arrinku maanta idinku ini taagan yahay nimanka hargeysaada yidhaaheen war dhalinyar baa isa soo sharixi ay yidhaaheen iyo kuwaa hargeysaada mustaqbalkii carruurtooda ku ciyaaraya ee wixii intaan ka soo shaqaynaynay baabiinaya arrinkaasi maanta inigu inii yaallaa 12 jir baaba tashaday iyo 7 jir inta u dhaxaysa wax laayaynima lihi laakiin waxa weeyaan talada kuwaasi gaadheen tu ka sii fiican idinku gaadha war maxaad odayada iyo salaadiinta kala tashanaysaa axsaabta diyaargalooda annagaa keenana yidhaaheen ragga hargeysaad ma wada xuma waar kuwa xubaa ku jira naqshadaasay u sameeyeen sidaasuu u yidhi foodka u diyaargalooba 25 oday baan haynoo suldaan iyo cuqaal iskugu jirta markhaataa laga yahay odayga ha canaananina khayralaas iyo weligoodba kala jebin bay ku wadeen kama ay guulaysan odayadu sidii bay iskugu duubnaayeen laakiin waxa la yidhi oday maxaad uga baahan tahay waxaan leeyahay waar 3 dhadhaarayna kadeeday iska tuura 3 dhadhaar tuura mustaqbalkiinii baa maanta lagu ciyaarayaa waxa weeyaan kuwa waysa sharaxayaan la yidhi iyo kuwa hormuudka u ah dhalinyarooy ka tashada wax dilanaynimo odhan kan ku noqonayaa 2 nin oo ilmaadeer la isku bedelay labaduba 2 inan oo fiican weeyaan inanka hore iyo inanka dambaba waan hambaliyaynayaa cumarna wasiirka caafimaadka waan hambaliyaynayaa kursiina adeerkii hayay unbuu ku bedelay wax saayidanna ma usiin waan hambaliyaynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu